بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمود عبد الديرش كمده رياشة كهول قال مقالة عدادو runtii qadiyada saxaafadda ee Puntland waxaad moodaa toddobaadkan inay aad iyo aad wajigii lagu aqoon jiray waji aan ahayn ay gashay ilaa ay gaartay in wasiirada xubno ka mid ay hanjabaan warbaahin madax bannaan la xiro runtii raadiyo daljir oo muddo dheer soo jiray in la xiro aad baan uga xunnahay wariyaasha qaarkood telefoon loo soo diray kuwa la jirdilay sida ka dhacday magaalada Garowe runtii aad baan uga xunnahay waxaan leenahay saxaafadda xorta ah ma ahan xilligii cadaadis la saari lahaa ama warkeeda la qarin lahaa runtii saxaafaddu waxay Puntland u haysaa hawl muhiim ah guud ahaan waddanka oo dhan marka waxaan dhihi lahaa waxaa habboon in saxaafadda xorta laga faa'iideysto iyadoo la ixtiraamayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee waddankaba wariyaasha runtii waa la dareemaynaa xanuunka iyo cagajugleynta iyo xarigga lagu hayo aad baan uga xunnahay runtii muqdisho ayaa markii hore dib nagu haysay haddana inay gobolladii kale iyo meelihii ammaanka ah wariyaasha lagu dhibaateeyo waa arrin culayskeeda leh balse waxaan rajayn doonaa caqliga wanaagsan inuu talin doono isla markaana arrimaha hadda jira la xallin doono iyadoo maamulka iyo saxaafadduba ay arrintan dib u eegayaan waana soo jeedin lahaa in si nidaamsan arrintaas loo wajaho oo aan laga sii aamusin waxaa imaan kara haddii laga aamuso arrintan ama cadaawadda noocaas ay sii badato in dhibku sii balaarto ay gaarto meelaha xilligan aysan joogin marka waxaan dhihi lahaa arrintaas aad iyo aad looga taxadaro maamulka Puntland ha dareemo dhibaatooyinka saxaafadda loo geysanaya inay yihiin siyaasadaan xataa kuwa saameyn kara marka lagu eegayo ama lagu miisaamayo qaanunada caalamiga iyo taageerada laga helo beesha caalamka. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد عبد الله محمد داقع عدي ومصدر كعيلهور أونلاين هدي أنا هاي الصحافة قلمدوك قارهان عدد دادك كشقية وحنا أدو عن بارين إن حرقة راديو دلجر يعاق جبلين تلوها هاي ورياش بنتلان ورياش مالي جوغان بوا اسكو حرفات وانا اسكو شاقو مامل كبنتلان مامل مدسو جري oon isleenahana waa maamul maaragtay maxaa la yiraahdaa wax badan soo shaqeynayay waxaan ka dalbanaynaa inuu saxaafadda cadaadiska badan oo laga yaabo qaar ka mid ah mas'uuliyiintu ay ku hayaan oo qaarkood ay wariyaasha u hanjabayaan in la joojiyo arrintaas ma aha arrin ku habboon shaqeynta saxaafadda horta Puntland waxaan ku naqaanay deegaan ay ku nabad galaan saxaafadda deegaan ay aad uga shaqeeyaan saxaafadda horta raadiyaha daljir oo ognahay meelo badan inuu ka shaqeeyo saxafiyiinta Puntland aan ognahay doorka ugu jiraan Soomaaliya haddaan nahay saxafiyiinta galmudug aadaan ula damqanaynaa maamulkana waxaan leenahay sharciga ha lagu dhaqmo waxaan ognahay guddiga dhexdhexaadinta ee ururka MAP ee ururka saxafiyiinta Puntland dhexdhexaadinta uu ku jiro waxaan rajaynaynaa maamulku inuu aqbalo arrintaasna maaragtay loo hoggaansamo wariyaashu waa bini aadan wax badan oo waxa ka dhici kara qaladkaas waxa la rabaa in lagu saxo qaab wanaagsan waliba daljir iyo raadiyaasha la midka daljir waxaan dareemi karnaa tartankii dhalinyarada amaba waxbarashada Puntland ka socday dad badan dhibaato ku qaba maaragtay mashaariicda iyo barnaamijyada joogsaday marka waxaan leenahay waa xaq darro xariga amaba xariga loo geystay raadiyo daljir iyo cadaadiska lagu hayo saxafiyiintu waxaan qabaa saxafiyiintu ma mudna inta ay maaragtay ururka saxafiyiinta maadaama uu yahay ururka howlgala dhammaan Puntland oo kale iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed oo nosoj laftigiisa inuu maaragtay arrintaas loo soo bandhigo saxafiga laftigiisuna waa hadduu shakhsi arrin ah sameeyo waa laga dacwo karaa laakiin ma aha in idaacadda dhamad la xiro in wariyaasha loo ag jugleeyo waxaan maqlaynaa saxaafadda wasiirka warfaafinta oo kale Puntland oo wariyaasha u dhaaranayo taas waxaan isleeyahay dabeecad ma aha hogaamiye qof hogaamiya maaragtay inuu u dhaarto wiil yar oo wiil u dhali karo oo kale inuu maaragtay u hanjabo oo yiraahdo maxaa la yiraahdaa sharciga ma aqoonsanin taas waxaan leenahay waa ku gaf maamulka Puntland sumcad xumo badan buu soo jeedinayaa marka waxaan leenahay maamulka Puntland waa maamul intaas ka ballaaran saxafiyiintana waxaan isleeyahay waa bini aadan oo dhibaato way geysan karaan laakiin ha lagu xalliyo sida xaq ah oo xalka ah in saxaafadduna qaladaadka waxyeelada la sameynayo ay joojiso dawladda Puntland ama maamulka Puntland uu saxo maaragtay ana saxaafaddana lagu xallin haddii ay qalad galaan qalad lagu saxayaa aysan noqon aan maaragtay saxaafadda xarig lagu la soo ordin saxaafaddu qaanuuna jira sharciya jira in maxkamadda la geeyo
kadib barnaamijkan idaacaddii furan ayaa waxaa la furi karaa dacwadda ka dhana idaacadda halkaas ayaa lagu kala xukmi karaa markaas inay maxkamad soo saarto laakiin in wasiir maxaa la yidhaahdaa idaacaddii hore ka xiro ama askar loo soo diro hore looga soo diro arrintaas waxay muujinaysaa in aysan qiimo badan uga fadhin waa laga yaabaa maamulka dad badan oo mucaarad ah ayaa hadli kara idaacadda ka hadli kara mucaarad iyo muxaafidba xaq ay u leeyihiin in saxaafadda ka hadlaan saxaafadduna waxay ka tahay dhexdhexaad arrimaha mucaaradka iyo muxaafidka maaha raadiyahan ama idaacaddan amaba saxaafadda ka shaqaynaysa gobolkaas tusaale ma aha inay u shaqeeyaan keliya maamulka ay ammaanaan u sacbiyaan maalmalba maaha waa inay codadka kale oo codadkan miisaanka kale u yeeli kara waa in la soo daayaa haddii aysan waddanka amaba deegaanka aysan burbur ku ahayn marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala uga baaqayaa in xor laga dhigo raadiyaha daljir in saxafiyiinta xornimadooda loo celiyo dad badanaa maxaa la yidhaahdaa shaqadooda dad badan ayaa ku xirnaa dhegaystayaala waxaan ognahay xataa gobolada dhexe raadiyo daljir raadiyaasha laga dhagaysto ku jiraa oo ka shaqaynayay saxafiyiintana waxaan leeyahay insha allahu tacaala idinka laftigiina sabirka hala adeegsado waxaa laga yaabaa maamulku waa maamulkiini aadaad u mahadsantihiin insha allahu tacaala aadaan uga xunnahay xarigga